xaaladda cakirin ee ka taagan magaalada muqdisho ayaa keentay in taliyayaasha ciidamada qeybaha kala duwan ay maanta shir gaara ku yeeshaan xarunta taliska booliska ee magaalada muqdisho. shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, taliyaha ciidanka xoogga dalka, taliyaha ciidanka asluubta, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Banaadir iyo agaasimaha cusub ee dhawaan NISA uu si ku meel gaar ah ugu magacaabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Yaasiin Faray. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa kulankaasi ka warbixiyay waxaanu sheegay inay ka arinsanayeen ammaanka iyo sida looga gudbi karo isqabqabsiga doorashooyinka dalka ee 2021. waxaa saaka shir isugu yimi taliyayaasha ciidamada iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada amniga ka tirsan si ay u qiimeeyaan xaaladda amni ee dalku meeshu marayaan ulana socodsiiyaan meesha xumarayaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa iyo gudihiisaba jooga. shirkan waa shir caadi ah oo usbuucla ah oo marba meel aan isugu imaan jirnay la isku wareegsan jiray xaaladdu meeshay marayso, doorashadu meeshay marayso iyo sidii muddadan looga gudbi lahaa xasaasiyaadka doorashooyinka iyo waxa ay leeyihiin si looga gudbi lahaa ayaanu saaka iska wareysanay. sidoo kale taliyo wuxuu tilmaamay inay ka doodeen in ciidamadu aanay ku milmin siyaasadda isaga oo sidoo kalena ka digay wararka xanafta leh ee lagu baahinayo baraha bulshada. dhinaca kale waxa kale oo uu intaasi ku sii daray in Soomaaliya ay leedahay cadow gudaha ah iyo mid dibadda ah loona baahan yahay in shacab iyo dawladba laga wada shaqeeyo horumarinta dalka. dalkan isaad ka warqabtaan cadow buu leeyahay, cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga. si marka ciidamadu ay isu xog dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen waqtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaas ka mid ah inay ku hamiyayaan inay ka faa'iideystaan waqtigan doorashada ayaa saldhigga ubuucdeenu u ahaa inaanu takhdiiraadka ama tartiibaadka noo degsan ee aanu ku maamuli jirnay caadiga markii la ahaayaan doorashadu jirin iyo hadda xaaladdu markay marayso cadowgu muxuu damacsan yahay dibadda iyo gudahaba. waxaa arrimahaas oo dhan ayaanu aada uga wada hadalnay. dhinaca kale hadalhayn badan ayaa ka dhalatay kasoo dhex muuqashada shirka ee Yaasiin Faray oo uu dhawaan Farmaajo si ku meel gaar ah ugu magacaabay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA sidoo kalena ah agaasimaha gobolka Banaadir ee hay'addaasi ayaa qayb ka noqonaya dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka socda caasimadda kuwaasi oo lagaga arinsanayo xaaladda cusub ee uu dalku haatan madaxa la galay xilli ay dalka ku soo wajahan yihiin doorashooyinka oo in muddo ah soo jiitamayay. si kastaba ha ahaatee khilaafka u dhaxeeya Rooble iyo Farmaajo ayaa u muuqda mid ka sii daraya waxaana labada xafiis ay qaadayaan tallaabooyin isku lidi ah oo la xidhiidha awoodaha labada dhinac iyaga oo midba midka kale uu ka cidhiidhsanayo. wararka kale ee la xidhiidha xaaladaha ka taagan Muqdisho waxaa ka mid ah wasiirka cusub ee amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa goor dhaweyd loo dhaariyay xilka cusub ee uu shalay u magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka qayb galay dhaarinta wasiirka cusub ee amniga gudaha waxaana dhaariyay wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur. dhaarinta kadib ayaa munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda amniga waxa uu wasiirka cusub ee amnigu si rasmi ah xilka ugala wareegay wasiir ku-xigeenka amniga ahna siihayaha Farxaan Cali Axmed kadib markii uu wasiirka amniga Xasan Xudubey uu diiday inuu xilkaasi wareejiyo. waxaan idinkaga mahad celinaa anoo ka soo bilaabaya kusimaha wasiirka ahna wasiiru dawlaha iyo agaasimaha iyo dhammaan tiimkiina kaleba soo dhaweynta aad igu soo dhaweyseen wasaaradda. waxaa kaloo idinkaga mahad celinaa hawshii quruxda badneyd ee aad hayseen muddadii aad ka shaqaynayseen wasaaraddan. haddana waxaan rajaynayaa wasaaraddan idinka oo ah lafdhabar. wasiiradu sidooda waa yimaadaan waa ka tegayaan waxaa laydinka rabaa wasaaradda inaa ilaashataan adinku aad u adeegtaan ummaddiina aad u adeegtaan. anugu maanta sidaan u imiday ayaan haddana birina uga tegayaa horena waa meelo kale aan usoo joogo aan uga soo tegay
haddana waxaa laga yaabaa uun sida iska caadiga ah wasiirada iyo dadka political appointeeska ah mar walba waa u yimaadaan waana la bedelaa waa iska caadi neejarka ama sidii shaqadu u samaysan tahay ayaana iska sidaas laakiin wasaaraddaani dadka ay wasaarad ku tahay ee lafdhabarta u ah waa adinka fursado fiican aan isku heli doonaa waa isku bara doonaa wax badan aan wada wadaagi doonaa aan wada sheekaysan doonaa haddii allah wadali ka raali noqdo waa mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad ra-iisul wasaare Rooble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay in uu si hufan u guto hawsha muhiimka u ah qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka dhinaca kale wasiirkii hore ee amniga Xudubey ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in wasaaradda arrimaha gudaha uu ka socdo afduub lagu sheegayo xil wareejin sida uu hadalka u dhigay hadda waxa ay soo gaadhaya in xarunta wasaaradda amniga gudaha uu ka socdo afduub lagu sheegayo xil wareejin ayuu Xudubey ku yiri qoraalka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Xudubey ayaa kal hore ka hor yimid xil uu ka qaaday ra'iisul wasaaruhu kuna tilmaamay sharci darro isagoo oo la safan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ra'iisul wasaaraha hayaan Rooble tallaabada oo qaada waa tallaabo sharci darro ah waxa uu jibinayaa sharci xilliyada doorashada markii la soo gaaro la wada og yahay oo soo jiri jiray asaguna hadda uu og yahay oo asagu soo saaray oo ah inaan xilliga doorashada qof mas'uul xil laga qaadi karin taas macnaheedu waxa waaye asaga laftiisa haddii hadda madaxweynuhu uu xilka ka qaado inuu diidayo waa la og yahay annagana waxaa wasaaradaha lagu amray inaysan cilna xil ka qaadi karin sharcigaas naftiisa ayaa Rooble qabanaya ciduu xil ka qaadi kara male asagoo wasiirkii koobaad waaye annaguna wasiirkii labaadaan nahay laakiin Xudubey adiga madaxweynaha kuma magacaabin ee ra'iisul wasaaraha ku magacaabay marka maxaad ku diidan tahay inuu xilka hadda ka qaadi karo haddii shalay isaga ku magacaabay asagaba madaxweynaha magacaabay hadduu hadda waa ka qaadayaan inuu diidaa waan ognaa marka magacaabista laga hadli maayo ee marxaladda lagu jiro ayaa laga hadlayaa marxaladdan kala guurka ah ee doorashadu bilaabatay ee senataradii la doortay ee lagu jiro in loo diyaar garoobo xildhibaanadii waa siyaasadaysan yihiin waxaan wax la diidayani waa xilka qaadis ama xil u magacaabid siyaasadaysan xilligan ayaa la diidan yahay waa qodob sharci darro ah waana midka hadda uu Rooble ku dhacay oo asagu uu u haysto inuu kor dadka inuu madaxweynahana hor ka diidi karo dadka kale ka hooseeyna uu wuxuu doono ka fuli karo ay amar asaga kaliya uu sharci iska dhigay boqor nin boqran oo iska dhigay waana kaliya talisnimo waana diidanahay wax dhici karana maaha waa tahay Xudubey maxay kula tahay sababta lagaga qaaday xilka waxa waaye sababtu waxaan isku haysanay in muddaaba war wasaaraddan anigu aan mas'uul ka ahay shaqadeeda iyo faragelinta ka daa oo walaalow wax aan sida adigu aad u baahan tahay laftaada inaan kaaga dambayno mas'uuliyaddeena noo daa